بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق دكتور محمد عبد القادر خليف waxaan joogaa magaalada Lahore dalka Pakistan insha Allah maanta lecture-keena wuxuu ku saabsan yahay ophthalmic artery aniga insha Allah ka hadli doona branches-kiisa iyo meelo uu kala qaybsamo iyo meelaha uu supply gareeyo ugu horreyn waxaan rabaa inaan sheegno ophthalmic artery-ga branch-ga ugu weyn ee artery-ga supply gareeya isha inteeda badan ophthalmic artery-gu waa branch ama qayb ka mid ah internal carotid artery-ga branch ka soo baxa internal carotid artery-ga waaye marka saan hore kugu soo sheegaba internal carotid artery-ga waa kana ophthalmic artery-gina waa kana waa qaybta ugu horeyso qaybta ka soo baxa ka mid ah waa internal carotid artery-ga marka wuxuu u kala baxaa ilaa 11 branches oo branch-yada kan insha Allah mid walba aan ka hadli doono as overview ama si common marka iyo mid walba meesha uu galo iyo waxa uu supply gareeyo marka ophthalmic artery-ga oo kana hadda branch-giisa ugu horeeya ka baxo waa central retinal artery and vein central retinal artery and vein central retinal artery and vein oo branch ugu horeeya koob tobanka branch ee ophthalmic artery-ga qaybtiisa ugu horeysa bartaasina waxay ka gashaa optic nerve-ga optic canal-kiisa iyadoo ilaa ay gaarto mataqaanaa waxayna supply gareysaa neurosensory retina ama qaybta hoose ee retinada waa kana sawir muujinaya qaybta hoose ama inner retinal layers-ka blood supply-gi wuxuu kasoo dhex gala optic disc-ki asagoo soo raacaya optic canal-ka waa kana meesha uu soo galo isha waana kala wuxuu kala baxaa mataqaanaa branch-ka oo kala baxaa veins-kiisa iyo arteries-ki insha Allah maalin dhan ayaga dhan sharxi doona hadii la yiraahdo one lecture oo ku saabsan central retinal artery and vein oo kaliya branches-ka ku xigo waxaa ka mid ah lacrimal artery oo qaybtaana oo supply gareyso lacrimal gland waa kana lacrimal gland-gi waxaa supply gareeya ophthalmic artery qaybtiisa lacrimal artery sidoo kale lacrimal artery-ga waxaa jiro branch ka sii baxo sida lateral iyo medial bulbar arteries lateral and medial bulbar arteries waxay supply gareeyaan eyelid-ka iyo sidoo kale conjunctiva qaybta kale ku xigto waxaa ka mid ah markaasaan u socono muscular branch oo qaybta kale ee muscles-ka marka asagana wuxuu u kala baxaa superior iyo inferior oo asagana wuxuu supply gareeyaa extraocular muscles-ka waxaa noogu xigo ciliary arteries ciliary arteries waxaa loo kala qaybaa posterior ciliary arteries iyo interior ciliary arteries posterior ciliary arteries-ka waxay u kala baxaan laba qaybood oo kala ah long posterior ciliary artery iyo short posterior ciliary arteries short posterior ciliary arteries waa 4 to 5 in number long-na waa 2 kuwana waa 4 ilaa 5 marka waxay wada supply gareeyaan interior-ka iyo posterior-ka iyo uveitis-ka oo dhan meesha interior ciliary artery oo qaybtaana uu ka imaaday asaga waa qayb muscular branches-ka ka mid ah wuxuu supply gareeyaa mataqaanaa extraocular muscles-ka special recti muscles-ka each recti muscle marka recti muscle walba ka walbo recti muscle walba wuxuu helaa labo anterior ciliary arteries ayaa supply gareeyo saad sawirka uga jeedaa meesha laba artery ayaa supply gareynayo marka laga reebo lateral-ka oo uu supply gareeyo only hal ama one anterior ciliary artery waxaa noogu xigo ethmoidal arteries ethmoidal arteries waxaa loo kala bixiyaa marka ayagana posterior ethmoidal arteries iyo interior ethmoidal arteries ethmoidal arteries-ki waa qayb ka mid ah ayagana isla mataqaanaa ophthalmic artery-gi posterior ethmoidal artery waa kana midkaan meeshaan ka baxaayo interior ethmoidal artery-ga waa kana sababta waxay tahay interior waxaa loo dhaha waxay tahay wuxuu xigaa dhinaca banaanka meesha posterior-ka uu soo xigo qaybta gudaha sadar haddii goor posterior waxaa gudaha soo xigo interior-na waxa uu banaanka xiga marka ayagana waxay supply gareeyaan ethmoidal sinuses afartii sinuses frontal sinuses-kii
sphenosynusiskii marka qaybta ethmoidal sinusiska ay supply gareeyaan anterior iyo posterior arteries. waxaa inoogu xogaa supratrochlear iyo supraorbital arteries. supraorbital waa qaybtan dul mareyso isha korkeeda, supratrochlearna waa qaybtan. meeshaana waxaa ka baxo arteryga ugu dambeeya loo yaqaan asagana dorsal nasal artery iyo dorsal nasal artery. dorsal nasal artery waa qaybta inta ka baxeyso, wuxuu supply gareeyaa mataqaanaa nose-ka qaybo ka mid. meesha supratrochlear iyo supraorbital ayagana supratrochlear waa midaanba muuqato caadiyan ee qofka markuu caadiya qofka markuu xanaaqsan yahay oo kale dhiig badan ay soo galayso oo loo jeedo. supraorbitalna waa tana marka ayagana waxay supply gareeyaan mataqaanaa foreheadka muscleskiisa, skinkiisa, maqaarkiisa iyo muscleska ku jiro iyo wixii lamid. I hope insha Allah inuu lecture wax badan idinka caawiyo. wixii insha Allah extra oo caawinaada ama wixii mataqaanaa aad iga baahataan insha Allah tacaala waxaad igala soo xiriiri kartaan emailkayga xanaf05@hotmail.com. waan mahadsantihiin insha Allah.